ururka samafalka iskoodu ayaa deeq kala duwan gaarsiisay dadka barakacayaasha ee ku dhaqan tuulooyinka ku teedsan deegaano ka tirsan gobolada Sool iyo Cayn kuwaas oo markii hore ka soo barakacay deegaano ay dagaal ka dhaceen oo kamid ah deegaanka Woodwood iyo Baliharac dadkan deeqdan loo qaybiyay ayaa waxay ka koobnaayeen 800 oo qoys kuwaas oo ah kuwii ugu liitay isla markaana baahi weyn u qabay goobaha la gaarsiiyay deeqdan ayaa waxaa kamid ah 6 kaamo ku hareersan magaalada Woodwood Baliharac Balicad Geeddeer iyo deegaano kale oo xilligan ay ku sugan yihiin barakacayaal tiro badan deeqdan la gaarsiiyay barakacayaasha ayaa waxay ka koobnaayeen maacuunta wax lagu karsado bustayaal bacaha roobka iyo caagadaha biyaha lagu dhaansado iyo kuwa kale oo ay baahi weyn u qabeen dadka soo barakacay gudoomiyaha ururka iskoodo oo goobjoog ah xilligii barakacayaasha deeqdan gargaarka loo qaybinayay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay isaga oo sheegay inay yihiin hay'adii ugu horeysay ee deeq dadka barakacayaasha soo gaarsiiya wuxuuna si gaar ah ugu mahad celiyay hay'adda caalamiga ah UNICEF oo ururka uu madaxda u yahay loogu soo wakiishay inay deeqdan gaarsiiyaan goobihii loogu talagalay isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisii kamid ahaa deeq ay awood u la soo gaarsiiyaan iyadoo dadka horbadan ay soo gaareen oo aan ugu mahad celinayno hay'adda UNICEF oo u dhagan nugul markasta baahida dadka haddaan nahay NGO iskooda waanu gaarsiinay deeqdii hore tii labaad ee ahayd mataqaanaa ku jirtay maacuunta bustayaasha gogosha bacaha musqulaha degdega iyo wax la wixii ay hay'adda UNICEF soo gaarsay waxaanu ka codsanaa hadda hay'adda UNICEF iyada la midka baahida ugu weyn maanta halka taan waa biyo la'aan iyadoo ay dadku markii hore meesha bal ahayd oo biyaha ugu dhow ay u jireen 40 kilomitir waxaanu hay'adda UNICEF oo aan uga baranay degan weyn dadka baahidiisa oo aan mar walba la garab taagan dadka inay wax tarto garankeeda ka codsanaa in ay ugu soo deeqdo sidii ay hore ugu soo deeqi jirtay baahida biyo taagan waxaanu u baahanahay hay'adda UNICEF iyo hadalada ee ka qayb qaata markii ugu horeysay ay ururka iskooda gaarsiiso deeqdan oo kale iyadoo 2 bil ka hor ay ahayd markii iskoodo ay gaarisay deeqdan oo kale Farxaan Jaamac wuxuu ka mid yahay odayaasha kaamka Geed Xamaray wuxuuna nooga waramay nolol xumada kaamka ka jirta isagoo si gaar ugu mahad celiyay ururka iskoodo wayna soo gaareen shandarooyinkii weelkii iyo qalabkii bustayaashii gogoshii maacuuntii isugu guda jiray oo maanta halka dhexdayada hortayada yaala hadda ilaahay baa mahadle waanu u mahad celinaynaa hay'adda UNICEF iyo ururka iskooda oo noo soo gudbiyay kaliya waxa hadda baahidoodii taagan tahay waa xaqii biyaha oo biyo la'aan dadkan waxa weeye gaadiid